anigu dumar baan ahaa warshadii aadamigiyo ugubkii noloshaan ahaa asaskii dunida iyo anigu dumar baan ahaa warshadii aadamigiyo ugubkii noloshaan ahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناسن داوديال مركله كسو dhawaada barnaamijka Marwo oo toddobaadkiiba mar hadahan oo kale aad kala socotaan Astaan TV dabcan barnaamijka Marwo sida aad la socotaan waxaynu ku falanqeynaa arrimaha haweenka iyo doorka ay ku leeyihiin bulshada waxaana alaab isla soo diyaarinaa isla markaana aan soo wada jeedinaa نعيمو سلو وata Aisha waa mahadsan tahay sida sheegtay barnaamijku waxa uu diiradda saaraa arrimaha haweenka iyo waliba doorka ay bulshada ku leeyihiin in toddobaad walibana mowduuc ayaan miiskeedin soo saarnaa toddobaadkana waxaan ka hadlaynaa guud ahaan arrimaha qoyska in khaasatan waxaan hoos uga sii dhaadhicaynaa gabdhaha xaaladaha soo wajaha ama ciladaha qabsada iyo waliba sida u wajihi lahaayeen موضوع walba qofka ehelku waa ayaan barnaamijka ku marti qaadnaa waxaana toddobaadka martin nagula ah barnaamijka oo stuudiyaha fadhiso Dr. Idil soo dhawaad Dr. Idil oo ah asaasaha xarunta kaafiye oo horumarinta qoyska sidoo kale xarunta kalsoon oo ah xarun loogu talagalay in dadka lagu siiyo talooyin khaasatan lamaanaha soo dhawaad aada uma santahay Naciima iyo Aisha waan ku dhawaa barnaamijka waa tahay Idil ma aan markii ugu horeysay Marwo qayb ka noqoto oo faraxsana mar kale in barnaamijka qayb ka ahaato in arrimaha qoyska rabna in aan ka hadalno arrimaha qoyskana waqti badan aan ku guda jirtaa ka shaqeynaysaa waxyaabo badan aan ka sameysay waxaan rabnaa marka hore Dr. Idil waxbarashadeeda iyo background-keeda wax yar inaan uga sheegto waa mahadsan tahay waxa ka baxay jaamacadda Muqdisho kulliyadda General Medicine and Surgery أنا جامعة كوجو جرا أو حافري حرونت كافيه أو لجو برتو حرفها جوريجا أم هوم ساينس وحلو يقانو تاس مركان دافورة أم حرونتاس كشقينا إلى إقربات شنصنو أو حيقول دلتي إن أرنت كسي وين تاي باهيدا إذا وقبلها أما فاميلي الصوماليات وبهين حرون كلا أو كونسلين أما لو سمينا وحيابها لتلينته kalsoon counseling sanadkan ayadana furnay labadaas meel hadaan ka howlgala dadkana badana waxa waay dad social media ama social activities tahay oo iskala shaqeynaa waxyaabo socialka waxyaabahaas dadka badan inta badan aad fiican way kula socdaan oo YouTube-ki meel walba way ku garanayaan kulay dabcan mowduuca tankiisa ayaa laga dareemi karaa intuu la egyahay maadaama saddex gabdhood ay soo fariisteen ay ka hadlayaan maxay ahayd arrimaha qoyska iyo dhibaatooyinka gabdhaha oo inta badan gabdhaha taabanayo oo laga yaabaa gabdho badan oo daawadayaal iyo wiilal laftarkooda maadaama qoyska ka mid yihiin intay shaax soo qaataan ee dhaan dadkan waaweynka tolo maxay sheegayaan oo isku dareen la noqdo intaan gudaha aan sii galin arrimaha qoyska guud ahaan qoyska waxa ka horeeya marka hore in asaas loo soo sameeyo oo wiilkii gabadhii ay soo fahmaan soo sheekaystaan ugu dambeyntiina qoyska sidaas lagu dhiso markii sheekada la joogo kale sidee gabadha guurka ugu diyaar garoobi kartaa maxaa looga baahan yahay wiilkana sidoo kale maxaa laga rabaa inuu sameeyo Naciima aad u mahadsan tahay badana bulshada Soomaaliyeed ama dhaqankeena marka u fiirsatid gabar markay guursanayso waxay diiradda saartaa muuqaalkeeda sidoo uu ekaan lahaa waa la naashnaashaa waa la qurxiyaa dhar qurux badan loo diyaariyaa iyo qodobka kale oo ah gurigeeda sidoo noqonayo laakiin arinta way ka weyn tahay taas oo waxay u baahan tahay in isdiyaarin si qoto dheer ah inay sameyso gabadha iyo wiilkaba inay iska diyaariso dhanka mentally ahaan inay gabadha u diyaarsan tahay xitaa muuqaal marka la fiirinayo gabdho qaar waxay fiiriyaan weight-kooda yani ama gabar caate inay noqoto xitaa waxa lagu la taliyaa gabdhaha qaar markay zaid yani underweight ay u yihiin inaysan guursanin aqoonteeda naftirkeed kaalin weyn ay ka qaadataa quruxda qoyskaasi sidoo noqon lahaa يعني جود أهان مركز كسو قبتويل إجواربا إني أقونت قوس كيس كدسان عافيمات أهان أما منتل أهان إني أديار سنين وحارك جبر
ayadaba maxaa la dhahaa isku buuqsan ama wiil asab stress nafta ka qaaday ama shaqada ku badatay inuu guurka dalaq yani ku ordo oo kale asoo mental ahaan u diyaarsaneen so waxa u baahanaa muuqaalka inta iska dhiseeno in si hoose qofku isku dhiso aqoon ahaan iyo maskax ahaan iyo jir ahaan intaba guud ahaan laakiin bulshadeena marka aragtid gabadhi ama wiilkii asina financial yani si dhaqaale ahaan isku soo dhisaa markuu arko inuu dhaqaale ahaan ninka lacag u haysto wuxuu isku arkaa inuu guursanayo dhaqaalaha bis inuu fiiriyo ma ahan gabadhana quruxda bis oo kale iyo muuqaalkeeda bis inay fiiriso ma ahan aqoonta qoysku waa la bartaa inay bartaan isdiyaariyaan kadibna ay guursadaan aad iyo aad idilay aqoontaas qoyska oo adiga inta badan aad wax badan kusoo jirtay oo xitaa xilliga aad jaamacadda dhiganaysay aad u xiiseynaysay oo isla markaana guri aa lahayd khibradna aa u leedahay ardayda hadda aa wax bartaan oo kale wiilal iyo gabdho oo lamaanayaal saas oo kale isugu jiraan gabdhaha badanaa horta xarunta kaafiya waxay diiradda saaraysay gabdhaha walow seminaaro yaryar oo arrimaha qoyska looga hadlayo ay jireen wiilal kasoo qaybgalayo laakiin badanaa waxay ahayd wiil gabar wado xaaskiisa ha noqoto ama saaxiibtiisa ha noqoto oo dhahayo hal ii tababaro laakiin weli ma arkin gabar dhaheyso saaxiibkay waaye asina ha barto ma jirin maybe inay seminaarada iskala soo qayb galaan laakiin home science wuu aad u balaaran yahay waxyaabo badanaa lagu bartaa sida maareynta iyo dhaqaalaha qoyska sida loo maareynayo ama resourciga ama agabka guriga oo kale sida u maareyn lahayd nutritionkaas oo hosgalayo oo kale si cunto caafimaad leh reerkaas ay u cun lahaayeen cuntada laftirkeeda sida loo diyaarin lahaay ama qaab muuqaalkeeda sidoo noqon lahaa ku jirto badanaa horta waxay ahayd ilaa iyo sanadadan gabdhaha barin laakiin nasiib wanaag sanadkan wuxuu noqday sanadka ugu horeeyay oo xarunta kaafiya ay qabanayso galaas loogu talagalay ragga oo special galaas aa dhahna xitaa dhaqaalaha xitaa dhanka gabdhaha oo ragga laga yareeyay yani sababtan waxaa waay inay ragga kusoo dhiiradaan cunto karintana waxaa dareemi karo qof walba oo wadanka ka baxo oo meel qurba tago inay tahay xirfad yani ama skill muhiim u ah qofka noloshiisa waxaan aragnaa badanaa qoysaskeena markay gabadha walacdo ama ugu yeelato ama ay dhasho in reerkeeda loo celiyo sabab ugu wacan dhanka cuntada laakiin waa marxaladaha ugu fiican uu ninka ku dareensiin lahaa xaaskiisa inuu jecel yahay uu garab taagan yahay waxyaabo waxaa jiro kubcinaya jecelka waxaa la dhahaa waa sida muruq oo kale muruq wuxuu u baahan yahay inuu kubco hadda u baahan tahay inaa exercise samaysid so sidaas oo kale waa jecelka faamilka in loo kubciyo exercise loo sameeyo exercisedan waxaa kamid ah oo kale rag inay cuntada qayb ka qaataan muhiim ah maalin walba inaa karisid laakiin marmar inuu ama faamilka hooyada oo kale walaalaha oo kale saaxiibayaasha oo kale inaa dhahdid waa jiraan rag cunto kariyo laakiin aad ay noogu yaryihiin meena ay helin dhiirigelin oo lagu dhiirigelinayo inta badan nin oo guriga cunto ka karinayo bulshada aad iyo aad waxaa la dhahaa shaqo la-aan ma heeso mala sixray ma waalan yahay nin ma aha miyaa kan faraa u godan ninkii la arkay inuu cunto macaan ama khatar oo karinayo ragga kale waxay dhahaan kan waxaa umaleynaa ragnimadiis xoogaa waxaa ka qaldan jinis oo waxaa ku jiro qaldan oo kale yani dacaayadaas heerkaasay gaartay taas itaane waxaa xusid mudan dadka ragga adduunka sheefafka ugu khatarsan xitaa hadda maqaayadaheena nimanka ugu khatarsan ama maqaayadaha ugu fiican ragaa joogaan sheefafkooda rag waaye laakiin waa soo muuqan lahaayeen sababta usoo muuqanayn maxaa waaye يعني تاجر دنك بالشدة مكهستان أو يعني وناج إن لو موجي ولا تصيني وح وناكسن سمينا يعني وبهانتها. مرمر كلاكيس حتى صوبنا كرت إن نينكي إسلها إن قبل هذا أصوح يالا بدن حرفة بدن ونعجور جي قانا كذا يابس وكلا قبل هذا يعني قبل قبت وسمي وكلا هذانا أتكلم بجرد حتى ها بصوته وحركوا يا صاحب كيس أو رير كيس أسيء أو سمينين أو كلا أما حو آمسين هاي بهدي قبل عن عمتة أو كريسيد أما اسكبرت أما كوكي برتا عمل أما ضعيف نمي إنا تاي لكن إنا مر والبوحة أنا أصل كنا أو نقولين الدين تواي نبيجين إنا كودين صلى الله عليه وسلم كان يحلب شات ولا يعني وحول سنجري أريجيسة دركيسو تلنجري يعني إنا ماشس مال كدنبيسو أو طلق أنا أما كودين ما جرت عادي يعني نينك حد هدو ساق صبحي أو سريرتيس أو جوجلده وحو أركع إنا تاوح أو حن أما وح قلدن لكن مركو إسكابولديها waxaa laga yaabaa inay caadi tahay inuu sariirtiis gogoshto normal oo tahay yani marka kale laakiin way ku adag tahay inuu sameeyo yani wuxuu u arkaa wax xooga adag aad
وارون حتى وانت بدن اسأتكنتاس nimanka ku jirto iyo dhaqankaas yara adag xitaa waxaa jirto run ahaantii waxaa jira rag diyaar u ah inay waxyaabaha sameeyaan laakiin gabdhihii yaa diidayo maxaa igu sameynaya iga fadhiiso maya diyaar mu ahan gabdhihii qaar aa diidayaanba inuu wixii sameeyo jaanis ma loo siinayo waxyaabahaas dhaqanka waxaa laga yaabaa gaab inuu u sameeyo ninkii iyo gabadhii aad iyo aad midaas oo kale yani sababahaas oo bulshada qayb ka tahay ma la is dhihi karaa qoyska dhibaatooyin ay ku abuuri kartaa aad iyo aad way badan yihiin taas waa wax qaar waxaa laga yaabaa inay rabaan in la caabiyo qaarna saa sheegtay inay dhahaan anima ay ceebeenay shaqma ay qabanayo taas hadda waxa waaye wax ugu simbalsan waayebo waxaa jira waxyaabo kale oo ka badan tusaalahaan oo kale wiilkan caruurtiisa inuu isbitaalada oo kale hadaa fiirsid dadka ugu badan waxaa waaye hooyooyin waaye ninka inuu soo baxo oo caruurtiisa soo wado oo isbitaal geeyo yani waxaa waaye big deal ay agteena ka tahay waxaa arkay marmarka qaar gabar maalin waxaa ii timid dhehayso xaajigeyga anoo isla socono oo guriga ah kasoo baxan cunugiisu xambaaray dariska dhan ay ugu soo yaaceen maxaa kaa qaldan muxuu u xambaaraa wax kula wada cunug maaweyse nin rag waaye maxaa ugu dhiibeysaa ceeb waaye hana ceebeenin anagaa kula wadeena waxaan jooji yani waxay ceebay la tahay xitaa ninka inuu ilmihiisa xambaarto ama heeyo waxaa loo arkaa wax oo aad u liito inay yihiin ragana dhaqankaasaa saameyn ku yeeshay aad iyo aad waa dhaqamada oo maaha aan diinta ahayn oo bulshooyinka ay leeyihiin xitaa waxay usoo dhacday ka hor xadiis in xasuusteen nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markii kareemiga ahaa uu arkay caruurta asoo dhunkanay ana caruurteeda inta soo caruur leh waliga ma dhunkanin si fiican uu leeyahay qalbi adkida nasaas qalbi adeegaas inta badan aan leenahay qaybka dhaqanka waxaa loo baahan yahay wixii wanaagsan inaad ka qaadano wixii aqoon iyo cilmi iyo tacadi ku jirana inaan ka tagno dadkeena wax barta ayaa loo baahan yahay inay arintaas sameeyaan laakiin hadaa dhaqan u leenahay maxaa sameeynaa laga aamuso way sii soconay aad iyo aad xitaa waxaa laga yaabaa dadkeena wax barta laftarkiisa ileen qoyska dhibaatooyin marnaba ma ka marnaadaan dhibaatooyinka qoyska seeska maxaa halkee ka soo bilowdaan idilay hadii la fiiriyo labada qof psychology ahaan dhibaatooyinkooda dhinac walba mushkiladaha meel un bay ka soo bilowdaan maxaa isdhihi kartaa mushkiladaha way ugu horeeyaan oo sababi kara qoyska aada u mahadsantahay Caaisha run ahaantii mushkiladaha laba u kala qaadeenaa kuwa guurka ka hor soo bilowdeena jiraan oo weygii waxaa laga fiiriyaa aasaaskiisa ama basic si hoos loo fiiriyaa meesha ka bilowday kuwana guurka kadib ee dhacaan oo guurka ka hor dhac badanaa waxaa waaye wiilkii ama gabadhii inuu iska indho tiro qofkii yani sida looga baahnaa yani waxyaabo muhiim ah inay tahay inuu ka fiiriyo inuusan ka fiirinin oo kale tusaalahan oo kale gabadhii inay ninka ka fiirso dhahdo qofkan dabeecadiisa way cajibisay qof wanaagsan waaye qof akhlaaq leh waaye laakiin qof shaqaysta ma ahan oo kale inay normal u aragto oo kale ma ka wadi lacag iyo waxaas laakiin ugu yaraan qofka inuu masruufkiisa biilkiisa gabadhi taasi ku dul koodi hore wuxuu arkay wax simple iska ah ama familkiisa oo kale inay fiiriso ama wiilki inuu gabadha familkeeda u arko inay famil xun yihiin laakiin gabadhiya gabar boqorad ah inuu dhaho kale gabadhiya gabar fiican ee familkeeda maxaa iga qusay oo kale ehelkeeda walaalaheedii waalidiinteedii inuu yani diiradda saarin oo kale kadib waxaas aa fiirsa hadhow markaa isguursatiin oo kale gabadhi ama uura yeelanay ama lacagaa loo baahanaa ama masruufaa loo baahanaa waxa ugu muhiimsan oo basic ahaa loo baahanaa kadib inay u aragto big deal la xumaato yani shalay waa usoo dulqaadatay wax normal u aragtay oo wixii aasaaska ahaa ma ka dhiganin beri marka aa guursatinna waxay kugu noqdeen wax oo muhiim ku ah marka indhexirnaanha yani waxaa la rabaa intuusan qofku guursan ka hor inuu 100% indhihiisa uu furo markuu guursado kadibna inuu indhihiisa 100% uu xiro anaga like cagsi sameeyna gabadhi markii ama wiilkii uu guursado kadib 100% indhihi yaal fura cilad walbo iyo wax walbo dhacaan waa la fiirna toosha isku qaadana waa la isku qoreeyana guurka ka horna waxa waaye raali waaye gabadhi wiilkiin waxa waaye wiil boqor ah yani waa aada yani lisku aaminsan yahay taas marka laga soo tago oo asaaska iyo basic iyo shukaansiga iyo waxyaabahaas dhan oo si fiican looga fiirsanin ama emotional qofkan inuu u diyaarsaneenba mental ahaan guurka yani inuu u guursado inay u diyaarsaneen oo kale waxaas marka laga soo tago waxaa jiro labada qofood ayagoo si saxsan isku soo doorteen oo isguursadeen noloshan yani inaysan si u fahmin oo kale tusaalahaan oo kale gabadhi inay u fahanto mafhuumka guudaa oo kale lahaansho inay ninka leedahay absama ninka uu fahmay inuu leeyahay oo kale waxyaabahaas hadhow
waxaa ka imaanaya qalqal badan isqa qabsi qalad qalad waa mushaaraka waa yani waxaan waxa isku darsateen inaa ka fikirtiin si u noqon lahayn wax wanaagsan oo baraaro shirkad waa aad mushaaraka waa mashruuc shakhsiyada leedihiin kala gooni ay noqoto aad si fiican inta badan waxaa arkaysaa hadalkaas Naciimo oo haddii asi daba galo shakhsiyada qofka inay gooni ka noqoto maadaama waxaan uu yahay wax la isku darsaday oo xeerar iyo wax u degan yahay ay tahay in lagu dhaqmo inta badan caadifad baa qaado qoysaska saawad ognahay oo xitaa qofkii waxa laga yaabaa gabadhii in ama wiilkii uu isiraado gabadhan guriga soo gashay sida hore ku noolad ka soo tag shakhsiyada aniga ku sameey qaado inta badan isteelka tusaale kale isteelka life-ka oo kale inuu bedelo sida ayada hore ugu nooleed oo kale hadda marwaata sida anigu kale aad ma dhigi kara shirkadii asaas noqotay oo waxa ka soo baxay amaradaas oo kale mise ma aha in qofka shakhsiyadiisa la bedelo ma qalad waa qofka shakhsiyadiisa iyo waxyaabaha uu jeclaa inaa ku ixtiraamtid waa ixtiraamkana ma ahan qofkan inaa si wanaagsan kula hadashid laakiin ixtiraamka naftirkiisa u baahan in la fahmo oo qofkan sidoo u hadlayo inaa ku ixtiraamtid sida dabeecadiisa tahay inaa ku ixtiraamtid sidoo u labistay inaa ku ixtiraamtid yani labiska ma hadlayo qof wax oo dhaqanka iyo diinta ka soo horjeedo laakiin ixtiraamku waxay tahay totally qofkan wixii shakhsiyadiisa qaaska u waxyaabaha uu jecleen inaadan lagu sameyn oo kale inaadan ku sameynin waxyaabahaas oo dhan ixtiraam ku soo hoosgalaya in la isku ixtiraamo waxay qayb weyn ka qaadataa labada qofood inay isfahmaan waa tahay doctor Said waa mahadsan tahay waxaan rabnaa markan inaan ka hadalno xarunta kalsoon waxyaabaha aad rabtid xaruntan inaad ka sameysid maadaama marka hore aad sameyn jirtay xirfado gabdhaha u sameyn jirtay sidoo kale intaysa guursan ka hornay aad la talin siin jirtay waxyaabo badan aad u sheegi jirtay xaruntan oo kale ma qorsheynaysaa in lamaanaha aad u sameysid la talin ama intaysa isguursan iyo markay isguursadaan ay dhibaatooyin la kulmaan oo kale inay ku imaan karaan isla markaana waxyaabaha midba midka ka qaldan aad u sheegi kartid si qoyskooda uusan u burburin aad u mahadsan tahay Naciimo kalsoon horta fikirkaas horta waxa igu dhaliyay waxa arkay gabdho badan oo dhibaateysan emotional problem badan haystaan iyo xitaa rag badan oo ay laftirkood is adkeenayo oo dib nolosha caqabadaheeda la kulmay waxaa jirto ma dhihi kari laakiin badana gabadha markay dhibaatooto ama family problem oo soo wajaho waxa la dhahaa hooyo aanan barkinteeda oo hin buuxinin ilmo ma korsato oo yani waxay noqotay arin bulshada aad yani u saameyso oo gabar walba haday soo cabato in looga dhigo hooyo walba way uusaa in la dhaho oo kale ee noqoto wax la qaato boqolkiiba boqolna waxa wax qaldan yani hooyo walba waxay mudan tahay nolol qurux badan degan xasilan farxad leh inay ku qaadato maadaama oo dumarkeena hormoonadooda isbedbedelkooda badan ay keenaan in emotional noqdaan oo kale badanaan hooyada marka dhibaato la wajahdo ma helayso yani meel intay tagto hadasho ku nafisto family problemka bis yani diirada masaaris kalsoon waxa kale oo diirada saarisa hooyooyinka yani badanaa waxay qaadaan depression markay umusho oo kale iyo xitaa hooyo hadaysan ahayn gabdhaha badanaa ama ragga xitaa yani qofka haduu shaqada ka badato ama waxyaabo dhibaatooyin uu la kulmo oo kale ama lacag la'aan ay ku dhacdo ama xitaa had wax ugu badan waxa waa qofa jaamacad ka baxaayo wuu fadhiyaa guriga jooga shaqadii filaayay ma helayo depressionkii walwalkii stresskii qofka ku badanayo waxyaabahaas oo dhan qofka ma helayo maalin walba waxa aragnaa qaraxya dhacayaan social media ku jirnaa dhibaatooyin badan dhacayaan waxyaabahaas qofka mentally u saameynayaan laakiin dadka hadda ilaa hadda way inkirsan yihiin in caafimaadka dhimirka ama maskaxda uu qofka u baahan yahay inuu helo meel talooyin oo ka helayo ama uu ku hadlo waxyaabahaas oo dhan ay qabanaysaa xitaa xanaaq badan dad waxa arkaysa xanaaqiisa aad u badan laba qofood oo waxa arkay wadada iska hormaa ama isku dhacayaan boqolkii tagay laba qof maanta isku horeyso isdagaalayaan sida loo maareeyo xanaaq oo kale caruurteen laftirkood dhibaatooyin badan ay waalidka kala kulmaan sida yani waalidka caruurtiisa uu la macaamili lahaa talooyin fiican uga heli lahaa waxbarashadooda loo sixi lahaa waxyaabahaas oo dhan oo la xiriiro dhanka talooyinka caafimaadka ay xarunta kalsoon qabanaysaa marka waa rajeynaynaa in aan gaarno heer wiil iyo gabar
ee u imaadaan ee dhahaan familkeena arintaas caqabad ku ah sida u xalinaa ayagoo isla socdaan hadda laakiin waxa dhacdo inuu wiilkiina saaxiibihiisa la soo sheekaysto gabadhin si gooni ah qof kasta go'aankiisa gooni inuu u soo qaato oo la isku sheegin qof walba waa wadadiis inuu wax ku xalisto oo la gaaro labada qof oo inay ceeb aysan u arkin inay ceeb u arkin inay arimooda yani hadda marka business leedahay ama shirkad ay ku furan tahay hadii shirkadaas ay caqabad ku imaato oo kale way fududaa qofka inuu counseling u raadiyo oo dadka weydiiyo dhaho maxaa sameeya laakiin way adagtaa marka family issue imaato bulshadeena waxay u arkaan wax ceeb ah in banaanka usoo baxaan ama talo ay raadsadaan dhanka familka aad dhibaatooyinka oo qoyska inta badan ma dhamaadaan way jirayaan horta inta bini'aadamka noolyihiin oo kuwa jiraya si kala yaraadaan ama si kala weynaadaan xoogaan hadda waa kasoo hadalnay waa bad misdhihi kari waa dhamayn doontiin maanta haddaba sidee loola macaamulaa dhibaatooyinkaas horta dhibaatooyinka oo familka iyo xitaa qaas ahaan hadda isku soo qabto dhibaatooyinka nolosha oo dhan qof walba oo dhibaato soo wajahda hal mar intaadan xalka aadan bixinin waxaan rabaa inaan ka dhex galo inta arintan ku guda jirtay muddo badan ku guda jirtay waxaan rabnaa inaad noo sheegtid sheekooyinkii kula yaabka badnaa ka dhex heshay ama dad ku imaaday sheekooyinkooda ama gabdho ku imaaday ama wiilal ku imaado oo wax la xalisay naciimo horta sheekooyinka aad u badan yihiin meesha muuqaalka ma kusoo koobi karno laakiin waxaa kasoo qaadanaynaa midka ugu saameynta badnaa amaba hadda aaminsanahay gabdho badan oo Soomaaliyeed oo hadda daawanayaan xitaa ama rag badan oo Soomaaliyeed ee isku dhiban yihiin gabadha waxay aad iskugu dhibanayaan ayada iyo xaajigeeda mobilka waa ka warqabnaa social media la wada isticmaalaa aad uu ninkan u isticmaalaa mobilkiisa ayadana maxay rabtaa mar walba mobilkaas wuxuu u isticmaalaa inay ogaato xalkiis laakiin si qaldan oo jahada oo kale inay ka warqabto maanta dhan mobilkiisa fatashto daba socoto asina mar walba uu arko caqabad in mobilkiisa la taabto dib badan yani kalsooni darab badan iskaga imaadeen gabadha waa isla sheekaysanay waxa ku dhahay mobilka waa baartay waa raadis wax ugu badan oo raadinaysid maxaa waay wax oo dhib ah lay ka raadinay ama wax qaldan ina aragtid okay waxaas qaldan marka aragtid adii ma ku farxaysaa maya marka waxa ku dhahay inta araadin lahayd dhibkaaga ama wixii ku soo gaari lahaa adiga gacmahaaga aad ku raadsan lahayd waxa ka qurux badan in ay ku soo raadsadaan soo markaas kalsooni waxa ku galayso adii waa iska joogtay nabada ku jirtay wixii ayaga ku soo raadsadeen laakiin marka adiga gacmahaaga ku raadsatid xitaa xujo hadhow oo aad ku doodi kartid ama qofkaan aad isku qabsan kartiin oo weyn ma helaysid sababtoo waxa aadan ku hortaagan sababa ii baaraysaa sababa ii daba taagan tahay xuriyada iga qaaday yani waxaan aamsanahay yani u sheegay markaasne gabadha hadee mar walba ee qof yani ilaah ku xiran oo maxaa la dhahaa nafteeda ku mashquulsan daacad ah ee noqoto mar walba oo la qiyaamay inay usoo baxayaan xitaa hadaysan raadinin wixii ayagoo socdaan inay meel walba joogaan ay ugu imaadaan gabadha waxay u adag tahay adi isku daya dhexoota ugu yaraan bil laba bil xitaa mobilka hadaa aragtid ha taabanin ha fiirinin faraha ka qaad sidii gabadhii sameysay gmail gashay nafteeda ku mashquushay adi bilooyin kadib ay soo laabato waxay dhahday wallahi tala fiican ay siisay dhahday awal heer waxaa joogay dhahday xitaa filimka hadduu fiirsanayo aad daba galo intaas aa ilaalinayo muxuu qabanaa muxuu sameynaa hadda laakiin heer waxaa la joogaa dhahday ani lii soo raadiyo maxaa kugu dhacay maxaa u baahan tahay dabeecadaada dhan waa isbedeshay yani ani lagu mashquul waa iga mashquushay waqtigaaga aaw intee ka baxday yani muhiimadana waxaa waaye in gabdhaha intay ku mashquuli lahaayeen wax ayaga dhibaateynayo inay ku mashquulsho wax nafsadeeda kor u qaadayo quality u yeelayo ama tayo siinayo inay ku mashquulaan marka waxaa aaminsanahay gabdho badan oo hadda daawanayaan iyo rag badan inay isku dhiban yihiin dhanka mobilkaas iyo maanta oo dhan in laisku haysto isticmaalka mobilkaas oo aad yani raggan u isticmaalayaan intuu shaqada jiro marka laga soo tago gurigiina inuu fahamsanayn waqti in loogu leeyahay marka family conflict oo dhankaas aad u badan yahay dhibaatooyinka qoyska inta badan gabdhaha ka imaadaan la gabdhiina waxay dhahaan nimankii ka imaadaan sax ka waran ismaandhaafkaas badan ee inta badan isfahamwaagaas ninkii iyo naagta uu kala dhaxeeyo oo inta badan la dhaho waa qaabka bini'aadamku u samaysan yahay psychology ahaan kala dareemaha iyo kala waxa isfahamwaagaas oo kale aad iyo aad dhibaatooyinka qoyska horta labadooda ka imaan karaa labadooda wax ka baxsanna way ka imaan karaan
يعني diiradda ma saareyno hal qof uu ka imaadaa total qalad waa inaan dhahno marmarka qaar qof uu ka imaan karaa marmarka qaar marmarka qaarna labadooda awood ka baxsan ay noqon kartaa waxyaabaha ugu badan oo hadda uu faamilada badan haysto qaar badan ee ku kala tageen qaar badan ee ku wada nool yihiin wax la dhaho dalaaq caatifi yaa jiro kala tag oo laakiin oo lis furin laakiin maankii maskaxdii iyo niyadii waa lagu kala tagay gurigaas lagu wada nool yahay ilmahaas la isku fiirsadaa nolosha normalka ka dhaxayso laakiin jaceyl naxariis waxyaabo kale ma jiraan dalaaq caadifi yaa la dhahaa waxaa keena badanaa labada qofood inaysan isfahamsaneen qofkan normally ninka ilaahay soo jirkiisa iyo gabadha soo jirkeeda u sameeyay ay u kala duwan yihiin sidaas si limid ah maskaxdooda iyo hab fikirkooda iyo hab dhaqankooda u kala duwan yahay gabadha marka ma fahamsano ninkan sidoo u fikiro sidoo u dhaqmo iyo waxyaabaha uu u baahan yahay asina ma fahamsano that's why gabadhi mar walba yani wax ugu badan ay raadinayso ihtimaam waa in la daryeelo naxariis ay hesho jaceyl hesho emotional waa gabadha badanaa mar walba waxa ayada u baahneed marka ninka u sameeyay maanta ayada keer garanayso guriga la kala bedelaa wax qatara loo sameeyna emotion asii laakiin waxa laga yaabaa waxaas inuusan wax weyn agtiis ka ahayn laakiin ayada marka waxa agteeda muhiim u ah waa ay arkayso inay u baahan tahay ee u maleysaa ninkan inuu u baahan yahay laakiin hadaba sidee maadaama oo ayada waxa ayada u baahan tahay u maleysaa inuu ninka u baahan yahay see ku ogaan kartaa gabadha ninka inay waxaan cilmi waaye that's why marka aan ku dhahayo guurka markii labada qofood ay galayaan waxa loo baahan yahay qofka inuu wax badan baaro cilmi badan xitaa hadaa soo guursatay muhiim ah in hore soo baartay marka guursatay kadib wax badan inay akhrisid waaye af Soomaali hadaa ku helaysid way jiraan buugaag badan baxthi inaa sameysid kala duwanaansho yani waxay kugu soo degay ma cilmiga meel walba uu yaala meel walba nolosheen waxay u baahan tahay aqoon qaas u baahan tahay ina PhD tahay professor tahay dhakhtarad tahay macna ma u sameynaysa ina guri maamushid shaqo isku lahan yani waa laba field oo kala duwan waxa arkaysaa marka dad aan jaamacada ka bixin oo reerahoodana aad perfect u dhisan yihiin maxaa keenayo aqoontii khibradii iyo cilmigii raadiyeen dad waxa arkaysaa oo martabada cilmiga meel wanaagsan ka gaaray laakiin dhanka qoyska oo ku liitaan waxa keenayo marka dhanka cilmiga qoyska waa cilmi loo baahan yahay qofka inuu raadiyo waxa ugu muhiimsan number 1 ah waxa waa horta qoys walbo inay fahmaan kala duwanaanshaha u dhaxeeyo rag iyo dumarka waa first step koowaad waa taas dil fahmo ويران حتى ساود هالليسين حتى واسكو فهم كرتين marka meesha say kasoo bilaabnay waa tahay idile waa mahadsan tahay hadalkaaga waxa ka dhaxayla waxay tahay in loo baahan yahay guurka ka hor ama kadib in arimaha qoyska si fiican u raadsid isla markaana buugaag badan ay akhrisid xitaa laga yaabay dadka kale oo guurka waqti badan ku jira dad gurigooda sa sheegtay ee qoyskooda ay faraxsan yihiin oo si nidaam ah ku socdo kale ina la hadashid oo waxyaabo badan ay weydiisid waa tahay si qaas ah gabdhaha ugu soo dadegeena arimahooda waxaan rabnaa inaan ka hadalno gabdhaha xaalado kala duwan aqabsado dhibaatooyin soo wajaho sidee gabadha xaaladahaas kala duwan u wajihi kartaa dhanka iyo psychology-ga rabnaa inaan u laabano mid ugu horeysa ku bilaabno gabadha markii la furo kale xaaladaha soo wajihi karo iyo dhibaatooyinka iyada maskaxiyan soo gaari kara maxay yihiin horta xaalad walba waxaa jira xaalado loo transitional yani marxalada ku jirtay waa ka baxday marxalad kala gashay intaas u dhaxeyso wuxuu xaal kulmaysaa qofka yani marxalad isbedel maskaxdeeda hab fikirkeeda dhaqankeeda dhan walba u saameynaysaa furiinka laba u kala qaadeenaa furiin waxaa jira gabadha nafis u noqonay marmarka qaar oo dhibaato badan lagu haayay cayiri badan ay ku dareemaysa iyo furiin gabadha aysan filaynin oo dhib ku ah ee ku niyad jabayso waxaa jira waxa la dhaho acute stress ama stress oo degdeg ah oo markaas dhacay badanaa wuxuu dhacaa kaas marka gabadha markaysan furiinka ayadoo filayn oo kale waxaa dhacda gabdho badan xaalada gurigooda ayagoo degan tahay fariin socoto leh loo soo diro ama warqad meel taalo loo dhigay oo sababta lagu kala tagay iyo xaalad ay degdeg yani ee ku dhacaan xaaladahaas oo kale badanaa gabadha waxay ku dareemaysaa oo kale hurdadii inay ku weyso oo kale cuntadii ku xumaato oo kale calaamadaha ugu muhiimsan waay oo gabadha ay dareemayso stress ay ku qaadayso oo kale taas marka laga soo tago xaalado waxaa jira marka gabadhii waxaa jira mushkilada jirto mushkiladaas hadii la xaliyo waxay rabtaa gurigeeda inuu sii jiro
haddii dhicin like furiin ma rabto oo kale waxay u aragtaa furiinkaas inay ku burbureyso oo kale tusaalahaan oo kale gabdho badan waxaa jiro dependence waxaa la dhaho inay rag wiilka ay ku tiirsan tahay oo kale dependencygaas tiirsanaanta dhaqaale bis ma ahan waxaa laga yaabaa dhaqaale marka laga soo tago qof ahaan inay qofkaas ugu tiirsan tahay oo haddii qofkaas meesha uu ka baxo ay ku burbureyso oo kale furiinkana marka uu dhaco gabadha yacni waxay lamid tahay dhibaatooyinka kale oo normalka oo dhaco oo qofka saameynayo niyad ahaan u saameynayo laakiin marxaladay kale leedahay oo kale marxaladaha ugu horeeya oo kale gabadha way ku dhibtootaa xitaa gabdho waxaa jiro inay niyad jab intay ka qaadaan ragga kale xitaa aamineynin nolosha ku cuslaato nolol maalmeedkeedii iyo shaqadeedii ay saameyso normal loogu dareemo gabdho qaarna inaa laga dareemin is adkeyso socoto maxaa la dhahaa wax nafteeda ay ku mashquuliso kuwa ugu badan oo marka dhibka soo gaaraya waxaa waaye gabar markii la furo gurigii sii joogto waxna baranin shaqeynin family kala aadin taas waxay noqonaya marka caqabadii inay kusii weynaato xataa hadhow ay ku noqoto wax oo inay kasoo kabsato ay adkaato laakiin marka mar walba oo mashquulsan tahay oo xaaladaas haday dhacdo oo naftaada mashquulisid damoor fududaato inaa markaas xaaladaada la qabsatid ama dib ugu soo kabatid bo isla markaa waa dhibaatooyin inta badan oo qaadanaysa in la xaliyo waqti iyo marxalado laftirkeeda aad iyo aad xitaa anaga Soomaali hadaan nahay awal horma u haysanin gabadha markay dhibaato marka laga soo tago furiinka dhibaatooyin kale ka badanaa jiraan gabar waxaa arkaysaa ayadoo gabar jaceyl inta loogu sheekeeyay ama gabarnimadeeda ku weysay ama dhibaatooyin qalad ka dhacay ma helayso qof ay u sheegto ama ku kalsoonaato ama wax la xaliyo ama gabar si qudbisiro lagu qabo oo ku qasban inaa qudbisiradaas ku jirto laakiin xalkii meesha ka wajihi lahayd iyo meesha ka bilaabi lahayd haysanin gabar la qabo oo caruur haysato oo habeenii maalin dhib haysto oo laakiin meelay u sheegto oo u arkaysa ceeb inay tahay ama xal way rabaan laakiin wuxuu arkoyin inay xalkaas sidii lagu gaari lahaa horta sheegidiiba inay tahay exactly ha dhibaatooyinkaas gabdhaha waxay u soo bandhigi karin cabsi ay ka qabaan ee bulshada iyo dadka weerarsan oo kale waata ku kalifis ilaa la noolaadaan dhibaatooyin fara badan ilaa heer in isla hadlaan ay gaaraan maanta xaruntan adi afurta iyo xarumo kale waxaa rajeynaa in gabdhaha ay ku baraarugaan imaadaan maxaa la dhahay talooyin iyo wax badan ay ka soo doontaan haddii adaan xalka maanta dhan waa ka sheekeynaynaa qoyska iyo dhibaatooyinkiisa wax hal mar soo degaya maaha sida waxyigoo kale uu iska badan yahay guud ahaan oo kale maxaa is leedahay dhibaatooyinkaas oo dhan waa lagu xalin karaa maadaama waxaan aqoon ee tahay aad iyo aad dhibaatooyinka nolosha haday noqoto shaqada dhibaatooyina kala kulmaysaa haday noqoto qoyska dhibaato kala kulmaysaa haday noqoto waxbarashada dhibaato kala kulmaysaa yani meel walba oo martid dhib way leedahay laakiin waxaa la rabaa marka inaan isla fahanno ama fariinta aan gudbinayo ee tahay naftaada waa inaa break siisid tusaale ahaan oo kale maanta baawur hadaa raacdid oo rabtid inaa meel fog ku gaartid waa inaa kaalin shidaal martid si aa meel fiican u gaartid qofka bini'aadanka naftiisa saas oo kale waaye wuxuu u baahan yahay shidaal inuu helo awood inuu helo jaajar inuu helo yani si uu wax badan u qabsado anaga ma heesano ama maba lagu baraarugsano qofkaan nafsadiisa inay u baahan tahay bareeg ama waqti naftiisa uu dib uu isku soo adkeenayo ma jiraan hadday hooyo tahay mee dhashaa uuree yeelataa way shaqeysaa gurigay ku dhex jirtaa ma haysato wax la dhaho me time wax la dhaha jiro waqti ayada qaas u ah ama bil ha noqdo ama labada bil ha noqdo ama isbuuc la noqdo waqtigaas waxa loogu talgalay marka qofka inuu ku nafiso waqti ku qaato wuxuu jecel yahay ku sameeyo naftiisa uu ku dareemo yani farxad iyo wax walba oo nafsidiisa irtiyaax siinayo rageen hadii loo fiiriyo ay laftirkood soo u shaqeynayo u daalayo oo maskaxda ka daala marka wax uu dul qaadan karo malahan barbalaanka guriga ma xalin karo ilmihi ma xalin karo uu daalaya ma haysto shaqooyinka Soomaalida hada u fiirisid waxa laga yaabaa jimco bis inay fasax yihiin ama bil marka waxa loo baahan yahay fasax inuu waqti ka soo qaato يعني إنا العقل وشقيسد وحكم يمسن عافمات كاي إنا كفكرتي إن رجيو كلا إنا فسح قاتان مسكحة كودجيان قبله ساسو كلا
يعني qof walba oo bin aadan ah inuu lahaado wax loo yaqaano me time waqti asqaas u ah nafsadiisa relax uu ku dareemayo si uu usoo energy usoo qaato oo hool kale oo ka badan iyo waxyaabo kale uu asi u jeclaa inuu hirgeliyo uu u sameeyo muhiim ah inaad safar gashid safarka waxyaabo ugu muhiimsan waa laakiin uu yaraan meesha joogto xitaa caawa xada xaafad kala seexatid ama isbuuca xaafadaha xaafadaha kugu dhow ama familka aad jawiga uu yaraan inaad bedeshid inaa waxyaabahaas ay bulshada ku baraarugto hadee anaga waxaan waa iska soconaa waa qaldantaa lagu kibirka kaa batay laakiin waxaa dareemi karo qof walba oo tijaabiyo ugu yaraan isbuuc xataa hal maalin inaad kala haatid gurigaaga dhexdiisa hadaa jeceshaa inaa wax ku samaysatid cuntadaa jeceshaa samaysatid hadaa jeceshaa inaa wax akhristid hadaa jeceshaa asxaabtaada inaa soo salaantid inaa u tagtid normal yani nafta adiga kugu jirto waa marka inaa adi isnooleysidaa laga rabaa waxay jeceshaa inaa u samaysid aad iyo aad waa tahay tiktoreso gabagabada barnaamijka isla soo gaarnay mawduucan aad u xiiso badan yahay waqti aad u fara badan uu u baahan yahay marka insha Allah mawduucyo kale iyo barnaamijyo kale uga hadli doonaa toddobaadkan TikTokers idil marti noogu heed barnaamijka waxyaabo badan noo sheegtay TikTokers hadal badan ku jira laakiin waqtiga laga dhamaaday waxa arkeynaa waxaan kalsoon imaada hadal oo nafis meeshaas aan oo balan insha Allah hadalkii nafiska dhamaanteen oo u baahanaana sidoo kale hadalada ugu dambeeyay talooyinka TikTokers idil bixis waxa kamid ah in la yeesho waqti qofku u gaar ahaado me time marka waxay noo balanaa aniga TikTokers idil naciima iyo dhamaanteen daawadayaasha inta badan waqti siisaan waqti si fiican aad tani kulanti dambe waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo asaskii dunida iyo anigu dumar baan ahaa warshadii aadamigiyo ugubkii noloshaan ahaa asaskii dunida iyo anigu dumar baan ahaa warshadii aadamigiyo udubkii noloshaan ahaa